السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب داودياشا kanaalkayga waxaan idin leeyahay soo dhawaada iyo mowduuc cusub oo maantay xiiso leh. Mowduucani inta ugu badan dadku waa ay ka soo hadleen balse aniguna waxaan isku dayaa inaan markayga ka hadlo. Mowduuca aan guda galno. Haddaba mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay ama noogu salaysan yahay insha Allah waa ciidamada cirka ee dowladda Turkiga. ciidamada cirka ee dowladda Turkiga inta aanan u guda galin ka hor dowladda Turkiga aan waxyaabo yaryar ka tilmaamo insha Allah. Okay, dowladda Turkiga waa wadanka dhaca qaaradda Yurub iyo Aasiya ee loo yaqaano Turkiga. Wadankani waa wadan aad iyo aad maaragtay xamaasad iyo maaragtay ka hadlidiisu ee leedahay xiiso gooni. Wadankani wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay natural resources iyo waxyaabo oo markii horeba dagaalkii labaad ee adduunka laga xadiday ama markii laga adkaaday qaybtii raggii oo ka ahaa ee maaragtay xulafadooda. sidaa daraadeed wadankani wuxuu xuduudo la leeyahay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Greega, Armenia, Azerbaijan iyo wadamadaas kaleeto oo dhan ama dhinacyadaas kaleeto oo dhan. Turkidu waxaa wadankani ay ka yihiin qowmiyadda Turkida dadka lagu sheego ama maaragtay qowmiyadda Trakta boqolkiiba 80 ilaa 70 waa xisaabintii u dambeysay ee 2020 la sameeyay. Magaalooyin waaweyn iyo waxay leeyihiin bridge aad waaweyn. dhulkani waa dhul aad u qurux badan. Haddaba Turkidu waxa ay leeyihiin mid ka mid ah magaalooyinkooda waaweyn oo laguna tilmaamay inay Istanbul tahay ayaa warbixinta hadda halkaani ay ku qoran tahay. Okay, Istanbul waa magaalada ugu weyn oo misana ah magaalada laba qaaradood ku taalo at one time. Okay, Ankarana waa caasimadda wadanka. Wadankani ciidankani hadda aan ka hadli rabno ee uu leeyahay ciidamada cirka ah waxa uu sameystay 1911. ciidankani calaamadoodu waa mid halkaas idin kaga muuqata. tirada guud ee ciidanku waa 80,000 oo askari qiyaas ahaan. waa qiyaastii 2020 ee u dambeysay ay soo saareen. ciidankan 80,000 oo askari ah waa kuwa ku gaashaaman ama maaragtay ku qalabeysan diyaarado ka badan 1248 diyaaradood. diyaaradahaasi waxay u kala baxaan qayb loo yaqaano fighter aircraft diyaaradaha dagaalka ama dagaalyahanada. diyaaradahani tiradooda waxaa lagu sheegay in ay yihiin 308 diyaaradood. sidoo kaleeto waxaa jiro kuwa loo yaqaano UAV oo loo soo gaabiyo unmanned aerial vehicles. 185 diyaaradood ayay ka haystaan. diyaaradaha bomberska ah 46 xabo ayay ka haystaan dowladda Turkiga waa qiyaasaade. military transport aircraft kuwa loo yaqaano oo ciidamada dabcan lagu daabulo 80 ilaa 80 qiyaastii lagu sheegay in maaragtay ay leeyihiin. diyaaradaha tababarka training aircraft 312 diyaaradood. helicopterska 600 wax ka badan ayaa lagu sheegay in ay leeyihiin. diyaaradaha helicopterska sidaas la mid ah attack helicopters ayaa jiro ayagana 120 xabo ayaa lagu sheegay in ay leeyihiin. ciidanka cirka ee dowladda Turkiga waxaa headquarter oo ah magaalada Ankara. headquarterni inteena badan waa fahmeynaa waa meesha laga maamulo ama laga abaabulo ama maaragtay saldhigoodii ugu weyn waxa weeyaan Ankara weeyaan. sidaas la mid ah waxaan sidoo kale tilmaameynaa talisyada ay hoos tagaan si guud ciidanka cirka ee dowladda Turkiga. talisyada ay hoos tagaan ciidamada cirka haddaba waxa ay kala yihiin sida guud ciidankani waxa ay hoos tagaan Recep Tayyip Erdogan iyo wasaaradda difaaca oo uu hogaamiyo Hulusi Akar. ciidankani waxa ay leeyihiin taliye gooni ah ama maaragtay taliyaha gaarka ah ama taliyaha goonida ah ee ciidamada cirka dowladda Turkiga waxaa loo yaqaanaa Xasan. qaybta dambe ma dhamaystiri karo dabcan waa magac Turkiya oo wuxuu u qoran yahay Kuzuka Yus. Okay, wixii dhawqa adinka weeyaan laakiin magaciisa waxaa loo yaqaanaa General Xasan. waa ciidamada cirka ee Turkiga. sidoo kaleeto ciidanka Turkiga waxay leeyihiin ku xigeen ama maaragtay in loo yaqaano Turkut Atman.
Turkud Adnan waa taliye ku-xigeenka ama waxaa loo yaqaana Force Commander of Turkey Air Force. sidaas la mid ah waxaa jiro ama maaragtay ninkaas ku sii xigo ama ku sii xigeen lama dhihi karo, laakiin waxaa loo yaqaanaa jagadiisa Chief of Air Staff. waa haddii si kale aan u yiraahdo madaxa shaqaalaha ciidamada cirka. waa ninka saddexaad maaragtay oo amirtiisu ay qaataan. dhanka kale waxay si guud u hoos imaan doonaan waa wasaaradda iyo madaxweyne Erdogan oo amirtooda ugu dambeeyo bixinayo, kuwaasoo taliyaashooda soo siinaya kadibna meesha ay qabtaan bas kicinaya. haddii aan si maaragtay hoos usii daadego liiska iska hor imaadyada ay ka qayb qaateen ciidamada dowladda Turkiga gaar ahaan kuwada cirka waxaa ka mid ah dagaalkii gobonimidoonka, kacdoonkii Ararat, kacdoonkii Dersim, dagaalkii Kuuriyada, duulaankii sidaas oo kaleeto Qubrus, howlgalkii waqooyiga, howlgalka ciidamada huwanta, howlgalka xorriyadda, ilaa iyo midka ugu dambeeyay oo ahaa gugaca nabadgelyada. dabcan dhammaanteen waa wada xasuusanaa 2020 oo dhacay dagaalkaasi oo diyaaradihiisa ay ka qayb qaateen dhanka iyo Suuriya kadib markii oo Bashar al-Assad iyo tiimkiisa ay ku eedab daroodeen ama ay xadgudub ku sameeyeen 33 askari. 33 askarina dabcan 3,000 ilaa 2,000 askar loo qiyaasay oo maaragtay ciidamada Bashar ayaa maaragtay oo dhimatay. haddii aan ka gudbo waxaan idin leeyahay mawduuca maantay inkastoo oo muddo aan ka maqnay YouTube-ka haddana xiisihiisa iyo maaragtay qadarintiisa ayuu leeyahay. waxaan idin rabaa inay soo dhaweysaan mahadsanidin. bye bye.